بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. waxaa maanta shirka jaraa'id u qabtay oon kaga hadlayaa arrimihii journaalka kusoo baxayay baryahan kusoo qoriyay taas oo aan filayo inay gaadhay in mar haddii qoraalkii macnaha uu muddo marayo in lasoo gudbiyo qayb ka mid a macnaha si loo sii brief gareeyo loo caddeeyo qaar ka mid a dhacdooyinka iyo waxyaabaha ka taagan jaamacadda Camuud. run ahaantii waxay u kalifay inaan nidaamkaas jaamacadda aan farageliyo oon ka hadlo waa wax dhacay oo bulshada dhammaan ay ka dheregsan tahay. dabcan jaamacadda Camuud waa hooyadii jaamacadaha Somaliland, waa la ogyahay waa jaamacaddii ugu horreysay. laakiin maanta markaad eegto halka ay marayso hoos u dhaca ku yimiday, hadday tahay dhinaca tayada waxbarashada iyo hadday tahay sumcaddii jaamacadda oo ay waxyaabo soo dhacay oo macnaha aan ehel u ahay waxbarashada ee ka dhacay jaamacadda Camuud ay sababeen inay jaamacadda sumcaddeedii ay hoos u dhacdo. taasina ay u baahan tahay in la toosiyo iyadoona qabiil shaksi iyo cid la necab yahay midna duulimaad lagu hayo. waajibka saaran qof kasta oo danaynaya jaamacadda ama muwaadina waxa weeyaan in institutionada ama mid waxbarasho ahaato ama mid kale ahaatee in meeshii khalad uu ka jiro dadku inay indhaha ka qarsaan maaha. sababtoo xadiis baa rasuulka ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam, man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadihi fabilisaanihi fabiqalbihi. qofku inuu wixii xumaan u arko uu marka horeysa gacantiisa ku suuliyo. dabcan inaan gacanta ku suulino awooddeedii maaha oo awooddaasi waa awood dawladeed, laakiin inaan ka hadalno oo aanaan qarinin wixii xaqiiqa jirtana waa waajibna saaran. run ahaantii jaamacadda Camuud sidii aan horaba maqaalada ugu soo saarnay waxaa ka dhacay waxyaabo badan oo dibdhac ku sameeyey, taas oo ay ka mid tahay in jaamacaddaas ka noqotay meel uu qof ama dhowr qof oo isurursaday gacanta u gashay, deetana ayna jirin ilaa maalintii la aasaasay ilaa maanta cid uga daba timiday. taasna ma garanayo ciddii awooddaas lahayd ee hawshaas qaban lahayd waxay ahayd raggii aqoon-yahanka ahaa ee u dhashay gobolkan ee markii horena tabaca badan ku bixiyey. waxay ahayd inay ka daba yimaadaan oo yidhahdaan war tabicii aynu bixinay iyo hawshii aynu qabanay halkey ku dambaysay oo halkey maraysaa, maxaa midho dhalay maxaase midho dhalay. waa nasiib darro taasina inay ka daba iman waayaan oo waa takaliftay in 14 sannadood ka bacdi ay Camuud soo hormaraan jaamacado la furay muddo hadda laga joogo 4 sano iyo 5 sano iyo 6 sano oo la furay ay ka tayo fiican yihiin maanta. dabcan waxaan maqlaa macnaha in qabiil baa lagu duulayaa iyo reer baa lagu duulayaa, dadka qaar macnaha dad suuqa jooga iyo dad kale waaweyn aqoon-yahan ay leeyihiin. taasina waa wax laga xishoodo, waana wax ka muxarima bulshada caafimaadka qabta iyo daa'irta soo koraysa. sababtoo waxaan doonaynaa inaan weji cusub iyo maxaa la yidhahdaa nidaam cusub aan ku soo kordhino bulshada aanu la noolnahay iyo dowladda Somalilandba ee ma nihin kuwii dib u dhaca iyo qabiilka dib ugu celin lahaa. soo dadkaas waxaan leenahay ka waantoobaan waxyaabahaas. macnaha qabiil baa lagu duulayaa iyo shaksi baa la necab yahay. waan aaminsanahay professor Saleebaan wax badan uu qabtay oo muddo joogay 14 sanadooda. maantana haddii wax la saxo oo la hagaajiyo waa joogi karaa oo dib macnaha loo sameeyo refreshment. sidoo kale jaamacadda Camuud xeerarka jaamacadaha ay ku dhisan yihiin caalamiga ay ku dhisan yihiin macnaha meel ka soo gasho malaha. jaamacadaha macnaha waxay ku dhisan yihiin waxay leeyihiin board committee, guddi sare oo hogaamiya himilooyinka iyo hanaanka waxbarasho ee jaamacadda, isla markaana maamula guddiga ka talinaya jaamacaddaasi oo mandate gareeya hadba sida wax loo qabanayo. sidoo kale jaamacadaha wax lagu yaqaanaa xeer bay leeyihiin, xeer bay leeyihiin maxaa la yidhahdaa lagu maamulo howl maalmeedkooga iyo himilada dheer ee jaamacadda. sidoo kale jaamacadaha vision bay leeyihiin la tiigsado. dabcan waxaa la ogyahay haddii intaas oo dhan jaamacadda Camuud midna kama jiro. dhinacan Somaliland dowladdana macnaha kolley waan ogahay markii hore wasaaradda waxbarashada ahayd berigii dhowtay madaxweyne Silaani wuxuu ku daray wasaaradda tacliinta sare, laakiin tacliintii sare weli lagu daray wasaaradda waxbarashada mayna shaqaynin. waxay iyada nasiib darraa in commissionkii la dhisay ee waxbarashada loogu talagalay
ونقضي كوميشن وحيران رجع جامعة هرمودة كا دنتو ذكية تكوي العشرة تحصل على نصيب درو أروح أنا كأني لكن أنا بهيد ركب مدح بنات جامعة وتوسير رجع سي مدح ركعة جامعة وكتب الجلا وكتب التجا وديو صح marka aynu ka hadalno maxaa la yiraahdaa wixii aniga ujeedadeedu ka ahayd inaan jaamacadan waa kaliya ta waxay iga tahay inaan la saxo jaamacadaasi runaatina amoodi maanta gurmad buuxaba u baahan tahay oo dal iyo dibad bari gurmadkaasna cid shaar qabiil xiran iyo cid xumaan doonaysa midna dani uguma jirto laakiin ragga wanaaga doonaya ee horumarka jecel ee sumcadda gobolka jecel iyo astaantii gobolku waa jaamacadda Camud waxaad ogtihiin inaynaan deked ma lihin airport ma lihin macnaha meel kale oo lagu soo bildhaarsado gobolka hawdal iyo degmada Boorama ma jirto oo ka ahayn jaamacadda Camud dabcan jaamacaddii Camud ee astaanta waxay reer hawdal iyo guud ahaan Soomaaliland oo ahayd jaamacaddii ugu horeysay haddii ay dhacdo in hoos u dhac uu ku yimaado iyo weaknesses fara badan waxay keenaysaa inay dadkii ay ka niyad jabaan oo waxaad ogtihiin jaamacadda ardayda dhigata kala bar waxay ka yimaadaan gobolada kale Soomaaliland iyo Soomaaliya taasna intoodii badnaa waxa cawd u gooyay dhacdooyin badan oo iska soo daba noqnoqday oo aan waxba laga qabanin maantana waxay maraysaa halkii ugu dambeysay haddii ay gurmad weydana dee waxa weeyaan waxa la waayayaa macnaha ma jirto astaan dambe oo lagu soo bildhaarsado awdal iyo Boorame taasi waa taas dhinaca kale waxa weeye in isbedel uu yimaado oo dadku ay isbedelaan oo uu yimaado macnaha tartan xora waxay keentaa horumarkay hogaamisaa oo waxaad ogtihiin marka meel uu iska haysto shakhsi ama ay boqortooyo iska haysatay family kaliyaata ama cid kaliyaati ay meel haysato wax macnaha faa'iido laga gaaro in ilaahay waad ogtihiin oo tusaale waxayna wadamada carbeed sidoo kale markuu shakhsi meel iska qabsado sida waa loo yahay nimanka dictatorshipskii wadamadii dhaqaalaha badnaa iyo sidaa ku haystay oo haddana dhaqaalooygu xumaaday sidaas darteed bini aadamku human beingku wuxuu ka dhaxlay tartanka horumar buu ka dhaxlaa oo Soomaaliland maanta waad ogtihiin marka doorasho la galay la tartamo nin walba macnaha wuxuu soo bandhigaya vision cusub iyo aragti cusub dabcan inuu fuliyo oo kursiga si haystan uu jecel yahay sidaas darteed xeerka jaamacaduna wuxuu dhigayaa in presidentka jaamacaddu inuu doorasho ku yimaado muddo uu leeyahay oo ku tartamo oo yiraahdo ma ogtahay waxaasaan ku horumarnay jaamacadda waxaasaan ku horumarnay ee tara bulshada ay kala doorato labadooda kii araa iyo fikir wanaagsan iyo tara wanaagsan taasina waxay wax taraysaa horumarkii jaamacadda Camud طبعا أنا ما يجيني فوضى وذا ما يجي نين أنتو معناها شعل إنه يحبر برام لكن جامعة عمود وما بربرا يسقف دب وذا وكحن جريتها كيجا لاقي واحد بربري وعامصناتها كوا دتك وناسن هرمك شعل كعامصن خلط كيركيان تحسنا ونصيب درو وحن مودي ببشرة عالم وسندان وقتيادا نقول دبي نيو فتسكي كدعي موديليستيكا طبعا الدنيا واحد بدل بيكسو كردية انت تكون معناها اي without government اي سماي كران محل هذا اي اوديين بيكسو كردية واحد بدلي كران يدو هل مليون عيدنا iyo intaasoo technical macnaha uu haysto nin dictatorship inay dadku bedeli karaan maanta marka dadka looga baahnaa inay qabiil ku tiirsadaan inay xumaan ku tiirsadaan laakiin waxa loo baahan yahay inaan aqliga saliimka ka shaqeysiino sidoo kale waxa macnaha wiigiina dhaafeemka markii dhow dowladda jaamacadda Camud ka hadlaysay waxa furaynaa takhasusyo master iyo PhD طبعا way wanaagsan tahay aadna waan u xiiseynaya in uu jecelahay in jaamacadda Camud lagu diyaariyo shahaadada masterka iyo PhD-da laakiin taasi in ay riyo noqoto ama waxa la hubin dadka la hor yimaado ma qurux badan Camud maanta waxay noognahay ma haysato macallimiin ku filan degree-ga ay bixiso oo waxa loo yahay inaan diploma ama degree wuxuu u dhigaa inaan degree baranayo taasna waxa keenay nidaamka meesha ka jiray maamulka jaamacadda Camud wuxuu saqadka u gooyo ogtiin oo uu qoos gooyay
nin kasta oo PhD ah nin kasta oo master ah oo meeshaas wax tiri lahaa cawda loo geeyay nasiib darrada kale dhacday jaamacadaha kale ku yaala Soomaaliland ama Boormada lafteeda oo Yale University ku taalo waxaad ogtiin waxa jooga niman cadaan oo Asia laga keenay Europe iyo Mareykan laga keenay طبعا taasi jaamacadda Amuud ilaa maanta laguma hayo waxa weeyaan iyadoo uu degree-geegu yahay mid very weak ah oo aan awood badan lahayn oo macallimiinta tayo fiican aanaysan sidoo kale resource-kii buugta iyo library-yadeedii macnaha ay yaalaan weli buugtii la dhigay 1998 markii la dhisay jaamacaddu oo aan wax dib lagu soo kordhin oo ardaydu had iyo jeer macnaha ay ku confuse garoobaan markay ay wax ka raadinayaan ama buug akhristaan u baahdaan in la yiraahdo master baa la furay aan library loo hayn aan macallin loo hayn aan على سنة كله لو بهنا أنا لوهين خاصنا واحد نقول يساون واحد معناها سكان نقول يساون إنه مدة لو قدر يستو وكرسي جلسية بديو بشدة لو قعديو خاصنا دوت كماتا تتجاهل معها طبعا ويقرنا يان لكن واحد نصيب تروه ماشي كم قن إن وحجرت كي يا قويها كي waxaweyaan in la qiimeeyo horta la yiraahdo intaan PhD master baa la fureen loorin in la yiraahdo war horta kii hore maxaa ka haynaa halkii hore intii hore haynay maxay noo qabsoomay maxaan u baahanay inaan ku soo kordhino in laga hadlaa ka muhiimsanay in master baa fureen la yiraahdo oo horta degree-gii la tayeeyo oo wixii loo baahnaa oo dhammaan loo helo hadday macallin tahay iyo hadday buug tahay taasna wax leeyahay ويسن معناها هدو توله أين نقول معناها إن يفعل ويدي يقرشين تلصور دقي بينوبه تحسنا على فكرة لهي رجع متعلمين تيجي بدو تجونا وحنقول باقية عمودي ما تقول بدو بانتي نك قبيلكم يرسل يسقط على قبيلكم يرسل لكن رجع عقلك السليم قاله يا هرمك تعلب وحنقول باقية أنت بعد عمود ما تقول مودي وبانتي أيوة بانتي قول ما تقدر وبانتي خاصة رجع كم مرة دلنا كرام هذا 100% وحيكون نوريهم قربها صوت ويا جماعة كل شيء كسو اسمه كس يا صوت شيء كسو قيم قاتي سو كنت ربي كري ما تروي تريد دوي ما دام ومعناها بالفصحى يلا بلو فصحى هذا سو قتال جامعة عن ذلك يجيبوا صون قنيسة هذه الناس الناسين وبالله التوفيق